asalaamu calaykum asxaabtayda kusoo dhawaada channelka. Halkan waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo livekayga tiktok insha allah. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaystaan. Halkan caawa waxaan ka hadlaynaa buugaagta, sidaan ku heli karaa, sidaan ku dalban karaa, iyo insha allah waxaan ka hadli doonaa xanaaqa iyo qofka markuu xanaaqo maxay tahay waxyaabo uu dareemayo. haddii aad tahay waalid xanaaqa sida iskaga dhaafi kartaa. walaalahana soo booqanay kulli waa mahadsantihiin, jazaakallahu khayr. haddii aad noo sheer garaynaysiin waad kaga mahad celinayaa. ana xitaa waa sheer garaynayaa insha allah. ma tahay qof nagu cusub oo mana soo booqanayo waa kaaga mahad celinaynaa. haddii aad tahay walaalaha nagu xirana jazaakallahu khayr, soo dhawaaw. soo dhawaada, shaashada noo garaac, noo sheer gareeya insha allah. hortaada waxaa arkaysaa waa buugaagteena. buugaagta caruurta lagu baraa af soomaaliga iyo diinta islaamka. buugaagteena dhan waxay yaalaan amazon. profilekayga haddii aad raacid waa helaysaa insha allah. haddii u baahantahay inaan kaa caawiyo ila soo xiriir insha allah. profilekayga whatsappka saarna iga soo xiriiri kartaa. haddii aad tahay qof buugaagteena gatana insha allah waana la soo xiriiri kartaa si aan ogaado feedbackkaaga. aada u mahadsantihiin kulligiin, soo dhawaada. okay. haddii aad haystid caruur yaryar waxaa muhiim ah mar walba inaad buugaag ku akhrisid. waxaa muhiim ah in waqti aad siisid. wax badan waan ka hadla faa'iidaday leedahay caruurta markii maskaxda loo dhiso, markii buugaag loo akhriyo inay qeyb ka mid tahay qeyb maskaxdooda dhismaysa, especially ilmaha markay yaryar yihiin. markii aad jeclaysiisid inay buugaagta adiga u akhrisid, markii ay soo yaro weynaadaan iyagaaba rabaanba inay akhristaan. markaas ma dhehaysid hooyo buug soo qaada akhriso, iyagaa jeclaanaya. ilmaha badanaa waxay wax ku bartaan markii adiga kaa arkaan. soo adiga xitaa markaa wax akhrisanaysid waxaa wanaagsan inaa ilmaha hortooda wax ku akhrisatid. inaa mataqaanaa qur-aanka markaa akhrisanaysid hortooda ku akhriso, buug kale markaa akhrisanaysid hortooda ku akhriso, si u arkaan inay iyaga kaliya ayn ahayn dadka wax akhristo oo adiga xitaa wax akhristid. markaasna way kaa arkayaan. ilmaha badana action ay maaragtay iyo adiga modelka u tahay wax ku fahmaan. maanta oo dhan haddii aad wax u sheegaydid kaama fahmayaan, laakiin haddii ay kaa arkaan dan way kaa fahmayaan. maanta waxaa waay dhiirigelinteena. haddii aad tahay qof xanaaq badan, maxay tahay xanaaqa xaguu ka yimaadaa, iyo maxay tahay waxyaabaha samayn kartid inaa xanaaqiska kala yaraysid insha allah. so user nala joog insha allah biidn illah. noo sheer gareeya. waa ujeedaa walaalaha shaashada garaacaya, jazaakallahu khayr kulligiin. videoga waxaan soo dhigi doonaa youtube insha allah. maanta maraba waqti badan inaan ku jiro, in yaraan ku jiri doonaa. buugaagtii hortiinay ka muuqataa maanta. waa kaas buuggaasa arkaysaan hadeer. waxaa waaye dhalashada nabiga sala allahu calayhi wasalam, siiradii ku qoran. ilmaha loo akhriyaa. buugga kale hadda arkaynay waa 5 tiir al-islaam. halkan waa sheeko caruurta loogu talagalay in loo akhriyo iyadoo ka sheekeynaysa tiirarka islaamka.
waxaa xitaa arkaysaa alifkaas waa xuruuftii hingaada. ilmaha markay weynaadaan ay ka daba qori karaan, soo buugga ka daba qori karaan. inta yarar yihiin waraaqaa ku jira aa ugu dhejin kartid derbiga si usii bartaan xuruufta, usii arkaan alif siduu uga duwan yahay, ba siday uga duwan tahay ta, inay sii bartaan. ilmaha waxaa wanaagsan in loo akhriyo wax badan, loona daaro iyadoo maqal ay tahay, not necessarily inay arkaan. laakiin youtube-kayga 20 minutes soo dhigay alifka, so 20 minutekaas haddii u daartid iyagoo iska ciyaara iska dhageystaan, markay soo yaro weynaadaan way yaqaanaan xuruuftii oo dhan. casharada markaas way u fududaanayaan inay bartaan. buuga kaloo arkaysaan markuu kusoo noqdaan soo celinaya insha allah. soo kaas waa ka sheekeeyay bara dhalashada nabiga sala allahu calayhi wasalam, waa siirada nabiga oo sala allahu calayhi wasalam aa ku qornay ilmaha loogu talagalay loo akhriyo. kan waa bara af soomaaliga, waa alfabet af soomaali. kan waa cilmi caaliya ka sheekeynaya shanta tiirul islaam. taas hooyo homeschool waa loogadeena, bugaagteena ay kusoo baxaan. soo amazon haddii haystid ama linka profilekayga saarna raacaysaa, ama amazon direct u tagaysaa, hooyo homeschool aa ku qoraysaa. laakiin waxaa wanaagsan inaa profilekayga linka saar inaa raacid insha allah, then waan arki karaa. haddii u baahantahay inaa ila soo xiriirtid whatsappka profilekayga saarna igala soo xiriiri kartaa. walaalayaal aada u mahadsantihiin, jazakallahu khayr. soo dhawaada kulligiin. maanta mawduucan wuxuu noqonayaa waalidka xanaaqa ama qofka xanaaqa muxuu iska sida maxay tahay xanaaqa, xaguu ka yimaadaa, waa loo xanaaqa iyo maxaa la iskaga caawin karaa inaan la xanaaqin. okay, so wax yar kor noo qaado. wax badan inaa caawo jooga ma rabo, in yaraan joogi doonaa, and then waa kasii dhacayaa biidni illaahi tacaala. so about 35 daqiiqa idinla joogayaa. 35taas kadibna waxaan rajeynayaa inaan nabadgelyo caafimaad isku dhaafno. adinka dhan waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtaan, meel walba oo iga daawanaysaan. okay walaalayaal, haddii aan kusoo qabto waxaa ogaanaysaa videogan waxaan keeni doonaa youtube, waxnana kama jaraayo. okay, so markaa mic soo qabsatid I hope inaad ku hadashid wax anaga dhan anfacayo. okay, so saas ogaada. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Seeta walaalo. fiicana alxamdulilah. how are you? seeta adiga? I'm doing great. marka waxaa ku soo wacay maanta walaalo, waxaan rabay inaa iga caawisid gabar yaro, waxaan haystaa 4 jira. wallaahi maama single mother aan ahay, marka anaa iska soo korsaday. aabeed waa la xiriirtaa, but jimciyo kale badanka anaa haysta. so marka hadda waxay la soo baxday dabeecado aad u adag, sida imika markaan iraahdo wax markaan u diido way ooyeysaa, dhulka isla dhacasaa, aad bay u caroonaysaa. wax markay rabto imikada yar inay heshee rabtaa. dabeecadooyaygu sii waxyaabo aan ku ogeyn bay la soo baxday. I think waa normal ilmuhu markuu koray, laakiin sidee baan ula dhaqmi karaa? okay, wadankee degantahay adiga? Mareykanka walaalo. okay, maasha allah. programmadeena ma la socotaa mise caawa ay ka horreyn? wallaahi markaa soo geshid waan ku dhegeystaa, but not often. markasta tiktok ma soo galo, maama busy aan iska ahay. iskoolna waan dhigtaa. hadda nasiib waqti yar baan haystaa, sidahaan baan ku rabay inaan kula hadlo. okay, I think waxaana hadda i weydiiday waa wax private le ku hadli karno insha allah. okay, so profilekayga meesha uma cabdiraxmaan ku qoran tahay taabo, whatsapp aa saaran, then whatsappkaas iga soo cod iisoo duub insha allah. yaa meeshaasaa ku hadlaynaa insha allah. cafwan, wixii intii karaankayga waa kula wadaagayaa. badanaa laakiin si general haddii aan u hadlo, ilmahaaga iyo adiga haddii isfahmi waay meesha yimaado, communicationkii aa waxyar qaldamay. so waxaa loo baahan yahay communicationka inaa saxmo. marka waa inaa isweydiidaa maxay tahay waxyaabaha ay sidaan dhaqankan cusub ay la timid, xaguu ka yimid. maxay tahay waxyaabaha keeni kara inay sidaan u dhaqanto hadday sidaan ahaan jirin. maxaa isbedelay adigii iyada relationshipkiinii. marka anigoo si guud u hadlaaya waa sidaas. caruurta badanaa waa communication iyo jacayl. waxyaabahay raadiyaan caruurta waa connection, inay connection kula sameeyaan. sometimesna maaragtay hadal kuma soo gudbin karaan dareemahooda,
so waxay kusoo gudbinayaan ooyin, waxay kusoo gudbinayaan ah inay dhulka isku tuuraan, inay صح mataqaanaa adiga waxyaaba is leedahay maxay tahay cunugan wuxuu sameynaya, laakiin waa wax uu isku dayayo ilmahaas inuu arko ina adiga isaga fahantid. marka صح waxaa loo baahan yahay a lot of empathy waa taqaanaa maahno. yeah empathy ها So empathy inaa isku daydid inaa iyada ruuxeeda dhex gashid, waris iyada dhexdeeda maxay tahay waxyaabay dareemayda inay sidaas u dhaqanto. marka okay taas fahantid, then you can waa caawin kartaa, adigana waa is caawin kartaa. So communicationka waa inuu saxmaa insha allah. aniga walaalo insha Allah whatsappka kala sheekaysan waxaan kaaga biloobi doonaa marka yareed sida dhaqankeyga u bilaamay daycare bay aadisay ano single mother aan iska ahay maama ay haynisay so aniga ku weesha waa social Inshallah. media ma ogtahay ba whatsappka ana every step kala hadlaya insha Allah then I will see if you can help me insha Allah walaalo Yes, parenting coach aan sameeyaa walaalaha u baahan whatsappka profilekeygu saaran yahay, then ila soo xiriir. Adiga magacaaga? ani waxaa la yiraahdaa soohana igu qoran The Wonder it's Woman, my yeah? a Wonder Woman just you know I meesha know. waa Saa igu soo TikTok qor, The Wonder Woman igu soo qor, okay? Saa Hi. ogaada that Okay, adiga okay, inaad tahay, walaalo. yeah? Okay, walaalo. Thank you so much. Aye. Adiga Thank you, mudan. aye, walaalo. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Inshallah. maxaa tiri Marwa Naciima, sorry gacanta iga dhacday qofka hadda kod invite gareeyay, iska raali noqo, gacanta iga dhacday, okay? ma aragtid miya meel aad igala soo xiriirtid uma jeedid, okay? waxaa sameynaysaa profilekeyga hadda telefoonkeyga idinka tusayaa midka kale, so halkaasaa tegaysaa meeshaan Umu Cabdiraxmaan ku qoran tahay, markaa halkaa ku dhufato waxaa kusoo baxaya profilekeyga, then link waa taabanaysaa, linka kusoo baxaya, then waa tegaysaa whatsappka kusoo baxaya, Amazon, YouTube, bugaagta, everything, okay? bugaagta maanka, do you have these books in English? bugaagtana waa Soomaali because waxaan rabnaa inaan isku dayno luqadeena Soomaaliyeed inaynan dhumin, marka waxaan rabnaa luqadeena inay jirto, caruurteena inay arkaan luqadeena inay tahay luqad jirto, therefore bugaagtana waa af Soomaali. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصعب soo dhawaaw, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kulligiin soo dhawaada. So nus saaca ii dhiman, nus saacaas maxaa rabaa inaan ka hadalno, walaalaha yarna soo booqanaya horta waa mahadsantihiin kulligiin. waxaan rabaa inaan ka hadalno xanaaq xaga ugu yimaada, why aa loo xanaaqaa. So you know ayaamahan waxaan bilaabnay inaan qorno, mogtahay waxa markii la qoro way shaqeynaysaa, wax waa arkaynaa. So adinka ii soo qoraydiin commentkiina, haddii aad rabtid waa soo qabsan kartaa. sorry waxaa ogaanaysaa just ina videoga waxba kama jaraayo, YouTube uu imaanaya, okay? So waxaan ka hadlaynaa xanaaq, okay? xanaaq waxaan ka hadlaynaa haddii aad xanaaqdid maxay tahay waxyaabaha maxaa u xanaaqdaa horta haddii aan isweydiino. Nafisa Xuseen, mawduuca caawa waa xanaaq, waalidiinta xanaaqa, especially ilmahooda ku xanaaqa, okay? taasaa ka hadlaynaa iyo sidee isku caawin karnaa insha allah. so kulligiin soo dhawaada. So haddii aad tahay qof nagu cusub, week walba waa imaadaa TikTok, waxaan ka hadlaynaa bugaagta hortiina ka muuqata kulli Amazonka yaalaan. Amazonka ku qoraysaa hooyo homeschool way kusoo baxayaan, ama linka profileka saarna taabanaysaa. mar walba dhiirigelinaa la socoto aniga livekeyga caawa waxaan ka hadlaynaa marka isku imaatinkeena caawa wuxuu ka hadlaynaa xanaaq, what is xanaaq, iyo sidee xanaaq looga gudbi karaa, especially caruurtaada markaa ku xanaaqdid maxay tahay wax xanaaqa kaa keeni karo. ma arkin weli Nafisa, ma arkin. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك. Beauty's love. waa igu kaa dambeeyda mar hore, maanta codkaaga dhageysanayay. maasha allah, maasha allah. Welcome back my sister, welcome back. Miss you too. sujuuda kaa dhunkada anigana walaashay macaan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bilic dumar soo dhawaada, kulligii soo dhawaada, okay? maanta bugaagta hortiina yaalaan, meel kalaan joogaa, soo bugaagta ma wado, laakiin waa bugaagtii aan idin sheegi jiray weligay oon idin sheegina doono,
oo kuwa caruurta wax lagu baro siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam, af Soomaaliga bara af Soomaaliga, shanta tiirul islaam, tiirarka islaamka. buugaagtana sawirro fiican aa ku yaala caruurta ay maaragtay ku fahmi karaan waxyaabaha laga hadlayo. kaasna waa alifkii alif ilaa ya, caruurtaada si ay u arkaan xuruufta carabiga. So maanta oo dhan way kusoo noqnoqonaysaa, computerka horteydu iska yaala laptopka, laakiin waxaan ka hadlaynaa xanaaq. What is xanaaq? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada. Okay, so waxaan rabaa inaan ka hadalno waxaan dhihi karnaa bini aadan markaan nahay, xanaaqa waa wax ka mid ah emotionska aan dareemayno. oo dareemaha aan dareeno waxyaabaha ka mid ah xanaaqa uu ku jiraa. so xanaaqa waa inaan qiranaa inuu jiro. laakiin xanaaqa boos uu leeyahay, sabab uu leeyahay. marka adiga ma tahay waalid ilmihiisa maanta oo dhan ku xanaaqa? Yeah, and then ma isweydiisay waayo xanaaqan iga imaanaya? waxaa sababa maanta inaan ka hadalno insha allah. insha allah youtube waa soo dhigi doonaa videogan si loo daawado. walaalaha hadda nala joogin ay u daawadaan, soo noo sheer gareeya. inta shaashad garaacaysa aad u mahadsantihiin. insha allah 10 daqiiqo kadib waa idinka tegi doonaa insha allah. so badanaa ilmaheena markaan la joogno, markii aan xanaaqno, waxaan u xanaaqaynaa because waxaan rabnaa inaan iska ilaalino waxyaabo annaga oo isleenahay threat ay nagu tahay. threat. waan xanaaqaa, waana ogahay waxaan u xanaaqay. sida loo xakameeya xanaaqa. yes, insha allah ka hadlaynaa. xanaaqa wax jira waaye. so it's okay inaa xanaaqdid, laakiin xanaaqa tirada badan ilmahaaga dhibaatada u geysanayo ma og tahay? iyo maxaa samayn kartaa inaadan xanaaqin? okay, aniga walaalo baryahan xanaaq badan baan isku arkay. okay, fiiri. so xanaaqa is an emotion. waa emotion loo baahan yahay marka inaan xaduud u sameyno waaye. okay, xaduud inaan u sameyno waaye xanaaqeena. badanaa markaan ilmihii aragno, ilmihiioo qalad sameynaya, ya, ama ilmihii oo adiga ku dhibaya, waxaa meesha markaas isdhahdaa, waa inaa adiga isdhahdaa ilmahan adiga kuguma dan laha inuu kaa xanaajiyo, isagayaanan aqoonin qaab kaloo mataqaana u dhaqmo. okay, because xanaaqa xitaa way kala tahay. dad waxaa jira wax saana ka xanaaqa iyo dad absolute ka xanaaqin. so waa inaa istaqaanaa adiga shaqsiga aad tahay. ilmahaagana hadda markaan ka hadlayno waalidiinta xanaaqa, ilmaha markaan ka hadlayno, waxaan u xanaaqnaa because horta waxaan ilaaweynaa meesha wixii loo dhan perspective meesha dhan ka baxaayo. so adi waxaas leedahay inaa ilmahan saxaan u baahanahay, wax hebel uu markaas qaldaya rabta inaa ka joojisid, ama qaab hebel u dhaqmaya rabta inaa ka istaajisid. so maxaa sameynaysaa? waa ku qaylinaysaa, ama waa gacana u qaadaysaa, ama waa dilaysaa, ama waa ku xanaaqaysaa. waa waxyaabo loo baahan yahay adiga inaa controlshid. taas isaga gacantiisa kuma jirto. marka ilmahaaga markuu kaa xanaajinayo adiga, ilmahaaga markuu qalad sameynayo, waxaa horta isdhahdaa, horta naftaada waxaa u sheegtaa ilmahayga sidaan uma sameynayo inuu ani meesha aan joogo uu iga wado, ama maskaxdayda meel kale uu geeyo. waxaa u fahantaa adiga qaab kale oo communication ila sameeya. this moment uma jeedo ilmahan. okay, so ilmaha mararka qaar markay rabaan wax in loo qabto, waa aragteen way oynayaan. mararka qaar dhulka isku tuurayaan, ya, mararka qaar way kaa cararayaan, mararka qaar waxay hayaan in dhulka tuurayaan. waa xanaaqsan yihiin, iyagayaa xanaaqsan. so adiga markaa kusii xanaaqdid, so xanaaqoodii correcta ka dhigtee. laakiin marka adiga calm iska dhigtid oo aad u qaadatid, okay, ilmahan wuxuu sidan u sameynayaa inaa aniga uu soo jiitou rabaa, inaa aniga isaga u jeestou rabaa, hawshaan haaye inaan joojiyo waayo, isaga inaan u jeestaa. marka u fikirtid
oo just aa fiiridid ilmahaaga dhaqankiisa xitaa wuu bedelmayaa because adi attention aa siisay. Okay, so ilmaha misbehaving waxay u sameeyaan attentionkaaga u baahan yihiin. Ilmaha waxay maaragtay ku dhibayaan markaas because attentionkaaga rabaan. Marka anaga confused inaan ku noqono maaha ilmahan inuu yahay qof aan la tirsanayno. Okay, marka adi xanaaqdid haddii ilmahaaga adi kaa xanaajiyo adigana xanaaqdid so ilmahaaga yaa la tirsatee, taasna ma aha macquul sax. see ilmahaaga ula tirsanaysaa qofkii mas-uulka ahaa soo adiga maaha, qofkii la rabay inuu isaga saxo adiga soo maaha ya. laakiin haddii aad dahdid sida ilmahayga u dhaqmo oo kale u dhaqmayaa then adigana 2 jirkiyaa tahay ama 4 jirkiyaa tahay ama 6 jirkiyaa tahay ama 7 jirkiyaa tahay dhulka isku garaacayo waxa uma dhaantid. Okay, taas waa inaa fahantid. marka taas fahantid then you can markaas waxaa dhihi kartaa qaabka ula dhaqmaysid easier ay kuu noqonaya markaas. Okay, so xanaaq dhan wuxuu ka yimaadaa trigger like fiiri markii lagu dhaho hadeer qof sanbabada la aad tahay markii lagu dhaho ya sanbabadaada neefta si fiican uma qaadanayso asmaa qabtaa markii lagu dhaho waxyaabaha triggerka kugu sameynaya inayna asmadaada kicin waa inaad iska ilaalisaa. so waa inaadan tegin meel qiiqa, waa inaadan tegin meel wasakh badan, waa inaadan tegin mataqaanaa meel bus badan taalo oo sanbabadii iska xiri karaan. waa inaad iska ilaalidaa inayna sanbabadaada xirmin haddii kale neeftaa ku dhibaydo sax. yes, thank you, maasha allah, talo wanaagsan, waa run, thank you so much. so triggerkaas waa inaad iska ilaalidaa si ayna asmadaada exacerbation ugu dhicin, si asmadaada ayna u halaabin ama aadan isbitaal u gelin sax. so because taas ay tahay physical ya ani waxaan idinku fahansiin karaa markaan jirka idinkaga soo qaado because badanaa waxyaaba aniga ka hadlo waa sida caruurta maskaxdooda aan u kobcin lahayn annagana maskaxdeena u kobcin lahayn. so maskaxdeena kor saaran oo ilaahay madaxeena u dhex geliyey haddii laga hadlo waxyaabaha exampleka lagu soo qaadanayo sometimes ma la fahmi karo. haddii aad tahay qof u diyaarsan inaad fahanto waa fahmi kartaa, laakiin haddii aadan fahmi karin waxaa rabaa marka inaad kugu soo qaato example marka physical healthka laga harko marka jirka biniaadanka waxyaabaha dhibaatooyinka ku dhaca laga hadlo waa more dhaqsiyaa la fahmaa ya. so markaa ku leeyahay waxaad ogaataa ilmahaaga markuu kaa xanaajinayo adiga ha iska dhigin ilmaha booskiisa ha gelin. adiga waa inaad qofkii mas-uulka ahay inaad is soo xasuusaa inaad tahay ilmahaaga markuu wax kugu sameeyo whether maaragtay wax walbo noqoto aragtan ilmaha waxay rabaan ay samayn karaan. adiga marka laakiin waxaa laga rabaa inaadan ku xadgudbin iyaga oo adiga aad iscontrolshid, waa inaad maskaxdaada control ku sameydid. so triggerkaas ilmahaas ay sameynayaan iyo xanaaqaas ilmahaas markaas ay rabaan inay kaa keenaan waa inaadan ogolaanin inuuna soo bixin. okay, waa inuuna kaa soo bixin. waxaa soo xasuusisaa waxaanan ka hadlayna maaragteen xanaaqa emergency miya. okay, fiiri emergency miya meesha socda. this is an emergency ya ina xanaaqo maxay tahay emergencyga meesha yaala. halis ma meesha taalo, halis oo waxaan ka wadaa dee life or death, dhimasho iyo ama nolol dhexdeeda miyaa meesha taalo ya. no, emergency dhan ma jiro. so haddii una emergency jirin oo ilmahaaga ama nolol iyo geeri una u dhexaynin then emergency ma aha. ilmahaaga hadduu kursi ku boodo emergency ma aha. ilmahaaga hadduu dhulka isku tuuro is not an emergency. okay, ilmahaaga haddii uu adigoo taagan dukaanka kugu xanaaqo uu ku dhaho hooyo ilaa waa rabaa nanacan ama xabadan shukulaatada is not an emergency, waa just connection ay rabaan inay kula sameeyaan. okay, marka isoo xasuusi meesha aniga waa xanaaqaya dhiiggii ay karaya dhexdiiaan ka dareemayaa. waxa kaliya marka ilmahaaga aad rabtid inaad tustid waxaa waaye sida xanaaqa loola dhaqmo
because ilmahan beri way weynaanayaan sidee rabtaa marka beri markay xanaaqaan inay u dhaqmaan inay maanta adiga kaa arkaan so isweydii emergency miyaa hawshaan aan ku jirno maanta ama waqtigan hadda la taagan yahay ma ahan emergency so maahan then waan ka dhaqaaqaynaa okay does that make sense waxaan sheegayo okay taladaas hadda idin siinayo wax aa fahanteen miyaa walaalayaal waxaa tiri abaayo caruurta marka aad ku xanaaqaysaa waa marka stress ku haayo ama daalan tahay ayaad xanaaqaysaa yes it makes sense thank you Faisa fiiri waxaan ka hadlaya taasay ahayd qofta soo qortay magaceeda muxuu ahaa aqbal inuu stress ku haayo inaad daalan tahay caruurta waxba kama gelin okay adigaa lagaa rabaa inuuna stress ku qabanin adigaa lagaa rabaa inaadan daalin adigaa lagaa rabaa inaad taas ka shaqaysid wax inaad ku qaladna maahan caruurta mas-uuliyad ilaahay noo dhiibta waaye ilaahay inagoo nagu hadiyey right marka adigaa lagaa rabaa walaalay macaan inaadan usoo qaadanin mataqaanaa aniga maanta waa daalanahay so waa kugu xanaaqi karaa ani ma dhihi kartaa hadda saas ama meeshaa ka shaqaysas ma dhihi kartaa ama meeshaad beri dukaanka aad u tegaydo alaabta kasoo gadanaydo ma dhihi kartaa ma dhihi kartid ya so adiga ilmahaaga inaa ku dhahid xaq uma lihid sax ha waa run midaas asturan thank you markaa ogaatid inayna ahayn emergency meeshay kasii wadaya insha allah okay haddii ayna emergency ahayn pause istaag bal istaag isweydii neef qaado shaydaanka iska naar pause like take a break breathe okay break yar qaado waa ujeedaa waxaa okay scenario idin siinayaa ilmahaaga badanaa wuu fiiriyaa waqtiyada adiga aa mashquulsan tahay inuu kusii mashquuliyo sax badanaa markaa telefoon soo qabsatid markaa hawsha guriga rabtid inaad iska boobsiisid markii la degdegsan yahay waxaan u malaydaaba inay ku fahansan yihiin inaadan markaas time u helin aa connection la sameydid so waxay kugu sameynayaan challenge way ku challenge garaynayaan marka adiga laakiin challengekaasi kugu sameynayaan waxaa lagaa rabaa inaad ka digtoonaatid oo aad aragtid qofka aad tahay inaa mataqaanaa ama hala degdegsanaado ama mataqaanaa bakeeri shaah caanaha lala fadhiyo kursiga waa inaad ahaataa hooyadii fiicneed hooyadii qalbiga wanaagsaneed aabihii wanaagsanay qofkii mar walba hadalka talada wanaagsan laga qaadan lahaa it doesn't matter waxa situationka yahay adiga loo baahan yahay inaad just noqotid qof wanaagsan adiga markaa aragtid inay marka iyaga ka arkaan inaa hooyo wanaagsan aabo wanaagsan inaad tahay connectionkay markaas u baahan yihiin aa siidid badanaa hab aa ku filan ilmaha challenge kasta ay ku rabaan inay ku geeyaan waxaa hab haddii aa siidid oo laabta aa gelidid oo aad tiraahdo hooyo hadda kani kana rabnaa inaan sameyno hadhow ma kusoo noqonaa hooyo waa ujeedaa inaa rabtid inaan waxaan sameyno hadhow ma sameynaa okay aad bartid in saas la iskula hadlo ilmahaaga ma kaa xanaajinayaan adiga because ma u allow garaynin umaadan ogolaanin inay kaa xanaajiyaan okay waxaa ii soo qortay ifraax cabdilaahi iron iyo vitamin D cun yes dadka xanaaqayo yes maxaa tiri aniga uur baa leeyahay xanaaqayga waa saa'id dulqaadkaaga saa'id laakiin xanaaqaaga waa mid adiga controlshid asturan okay vitamin D iyo iron tablets kaama caawinayso xanaaq vitamin D iyo iron tablets waxaa loogu talagala dhiiga cas oo kaa yaraada iyo feeradii oo kaa yaraata iyo waxyaabahaas lafa xanuunka iyo waxaas oo kale ya uur markaa leedahay of course wuu isbedelayaa hormoneskaaga hormonal aa noqonaysaa waa sida markii bishii oo kale caadada kugu dhacdo oo kale hormonal ay dadka qaar noqdaan not everybody laakiin dadka qaar hormonal ay noqdaan waxaa waaye sababaa rabtaa inaa u raadisid xanaaqaaga sababta u raadinaysidna maahan uur aa leeyahay haddaa uur leedahay maanta ani ada iska hor imaano migu xanaaqee
yaa ama meesha shaqada haddii aad tagtid ama qofka wax ka iibsanaysid dukaanka waa iscontroleysaa yaa marka ilmahaaga inaad ku xanaaqdid waa sidaas oo kale this is hadiyad ilaahay ku siiyo waaye okay marka insha allah haddii aad xanaaqdid isweydii emergency miya horta waxaan dhibaato halis ah miya haddii ayna ahayn break qaado okay break ka qaado ilmaha pause you need to pause you need to breathe neef qaado shaydaanka iska naar markii aad shaydaanka iska naartid maxaan ku leeyahay haddaa u baahanta inaad soo weyse qaado okay haddaa u baahanta inaad soo weyse qaado haddaa u baahanta qolka inaad ka baxdo ka bax yaa haddii aad u baahan tahay inaad biyo cabto biyo cab insha allah okay and then so you need to breathe okay neef qaado biyo cab weyse qaado wixii adiga markaas kuu fudud ilmaha xitaa waxaa dhigi kartaa fiiri hooyo haddeer wax yarays waxaan rabaa inaan waqti u qaato nafteyda wax yar time ma isii kartaa xagga iskaga ciyaar taasaa dhigi kartaa you have to teach them waa inaad bartaa iyaga wax walbay kaa codsadaan inayna mar walba heli karin okay waa inay bartaan because nolosha haddii kale beenaa u sheegta ilmaha ma fahantay ilmaha haddii kale hadhowtii markii ay soo yaro weynaadaan markii ay rabaan in wax qabsadaan haddii ayna heli karin mar walba markaas ma fahmi karaan sababtayna waxaas u dhici karin because hadda waa inaad sii bartid marka adiga haddii aad rabtid inaad wax yar naftaada waqti u qaadatid waa dhihi kartaa hooyo wax yar waa kusoo noqonayaa 5 minute time isii wax yar iska ciyaar keligaa dhibaataduu sameeye hakaba kala hadlin hooyo hadhowtii aan ka hadlaynaa dheh meeshaas ku xir si adi isku soo dejisid markaa bilaawda inaad sidaa samaysid maskaxdaada waxay baranaysaa inaa horta dhibaatadan ku haysato inaa maaragtay inaa xal u raadinaysid so mindsetkaaga dhan waa inaa bedeshid okay mindsetkaaga dhan waa inaa bedeshid waa inaa isdhahdaa naftaada okay mar walbuu raba ilmahayga inuu iga xanaajiyo waxay ii noqonaysaa opportunity like waxay noqonaysaa fursadaan qaadanayaa inaan nafteyda xakameeyo inaan ilmahayga ku xadgudbin okay mar walbana isku sheeg shaqadeyda markaa tago kuma xadgudbo mataqaanaa markaan meel caafimaad tago kuma xadgudbo dhakhtarka markaan baska raacayo kuma xadgudbo ninka baska wadaayo markaan diyaarad raacayo even haddii diyaaradda ay kaa tegi rabto laguma saarayo haddii aad soo dahdid diyaaradda way tegi kartaa leh maxaa sameynaya marka dadka meesha taagan waa ku xadgudbaya no you have to behave yourself waa inaad behaviorkaaga adiga bedeshid adi markaa behaviorkaaga bedeshid ilmahaagana way bedelmayaan n waxaa u noqonaysaa waxyaabaha maanta oo dhan aa u sheegaydid way kaa arkayaan you like the role model aa u tahay okay midda xigta waxaa waaye okay empower yourself okay waa inaa isku dhahdaa naftaada you know maybe waa inaa horta dib iskugu noqdaa waa inaa isweydiiyaa maxaa igu dhacay waa inaa isweydiiyaa waa inaan isku sheegaa markii aan arko ilmahayga dhibaata sameynayo waa inaan isdhahaa bal horta iyara sug dhibaatada ilmaha maahane waa aniga really sidaas markaa isdhahdid waa isbaranaysaa qofkaa tahay because maybe maanta kahor kuma aadan fakarin dhibaatada ina adiga tahay waxaa dhici karta situation adiga kugu dhaca markii aa yareed in sidaan adiga hadda u dhaqmaysa inaa u dhaqantid inaa rabtid oo kale inaa usii dhaqantid inay maybe sidaan adiga kugu soo dhacday waxaasoo dhan waa inaa meesha ka saartid wixii adiga kugu soo dhacay ilaahay qadartiisay kugu dhaceen hadda qof weynaata ilaahay mas-uulkaa dhigay hadda adiga ilmo kale mas-uulka ah oo ilaahay oo ku dhahay ilmahan ii haay oo ii tarbiyey oo bar ilaahay iyo diintiisa baraa lagu dhahay adiga marka waxaa lagaa rabaa inaa isweydiisid
reactionkayga waa inaa isfiiriyaa. Haddii u baahan tahay inaa mataqaanaa xanaaqaaga qof kale aad la wadaagtid, la wadaag. Kani kanaan dareemayaa, sidaan iyo sidaan, si kasta sidaanaan dareemayaa, maxaa igu dhacay. Laakiin ilmahaaga ha ku dhihin, ilmahaaga ha ku xadgudbin, ilmahaaga ha ku qaylinin, ilmahaaga ha ku hor ooynin xitaa, ilmahaaga murugo ayna qaadi karin ha la wadaagin, ilmahaaga ha ka xanaajinin adiga xitaa. Just stop, just stop, iska stop garay wax walba. Okay? Shaydaanka iska naar. Ilaahay wuxuuna siiyey suuradaha mataqaanaa qalbiyadeena aan rabno inaan ku dejino suuradahaas akhriso. Bal isdeji adiga. Mar walba isdeji. Aayadaha Ilaahay oo noo soo dejiyo soo xasuuso. Faatixada xitaa akhriso. Yaa qur-aanka la haddaadan aqoonin, faatixa akhriso. Suurada faatixa ku celceli, ku celceli, ku celceli. Yaa suurada ikhlaas ku celceli, ku celceli, ku celceli. Salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ku celceli, ku celceli. Waa dareemaysaa tartiib, waa dareemaysaa. Yeah. And then marka ilmahaaga arko inaad tahay qof isaga dhan sidaas isku caawinaya maaragte, ilmahaaga maba ku dhibi doono. Because wax walba attention kuu rabo waaba siinaysaa sax. Hooyo waxaan rabaa kani kan. Okay, mar walba kani kan ma heli kartid hooyo. Because waqtiganan loogu talagalin in kani kan la helo, waqtiyada kale looguma talagelin. Ilmahaaga wuu baranaya disappointments. Wuu baranaya inuu wax kasta heli karin. Even ilmaha dukaanka markay tagaan kugu ooyo, kugu qayliyo, dhulka isku tuura. Aamus u taagnaaw. Adiga ha qaylinin, ha jiidin, mataqaanaa ag fariiso ka aamus fiiri. Waxaa dhahay hooyo waa ikan. Markaad diyaar noqoto inaan guriga tagno, waa ku sugayaa. That's it. Ilmahaaga cooperation oo sameynaya, isagaa ku caawinayo. Horeyuna ku wadaaya, insha Allah. So adiga dib ha isku celinin, okay? Waxaa u aragtaa hawshan waalidnimada Ilaahay kuu dhiibtay waa hawl oo serious ah. Waa mid yawmal aakhir lagu weydiin doono. Marka ilmahaaga ha ku xadgudbin, hadal xun ha ku dhihin, qalbiyadooda ha dhaawicin, ha dilin, gacan ha u geysanin. Waxyaabo badan oo mataqaanaa hadhowti maskaxdooda iyaga markay weynaadaan damage aad ku gaarsiin lahayd oo dhan iska ilaali. You know? Ilmahaaga meel laga caytamayo ha geynin. Ilmahaaga TV-ga caay ha uga daarin. Wax caay adiga ha dhegaysanin. Damoor adiga ka arkaan wanaag, ilmahaaga damoor ay wanaag ku dhaqmaan. Iyo qofkaa tahay isbarabal adiga. Adiga yaa tahay. Who are you? Yeah? Markastana waxaa dhahdaa listen. Aniga xaq ma u lihi ilmahayga inaan ku xadgudbo. Bini aadan waan nahay, yes. Waan xanaaqi karaa, yes. Laakiin ma iga istaahilaan? No, kaama istaahilaan inaa ku xanaaqdid. Ilmaha qaab waxaa jir lagu fahansiiyey qaladkooda. Okay? Qaladkooda haddii aad rabto inaad fahansiisid, weligaa horta waxaa ka bilowdaa good habsi macnasi. Ilmahaaga hab markaa siidid oo mac siidid ma kaa cabsanaayo. Wuu ku soo dhawaanayaa. Wuu ku soo dhawaysanayaa. Saaxiib wuu kula noqonayaa. Communicationkiina wuu fiicnaanayaa. qalad kastoo ilmahaaga sameeyo. Waxaan emergency miyaa isoo xasuusi. Is this an emergency? Yeah? Ambulance in loo wac miyaa ilmahaaga neefta maa ku dhigtay? Wadnihii maa istaagay? No. Then you take a break. You breathe. Neef qaado. Salliga nabiga akhriso sallallahu alayhi wasallam. Wayse qaado. Cunto cun. Biyo cab. Waxaad sameey. Hadhow u soo noqo marka dhibaatadii. Dhibaatada ilmahaaga marka halkan kuu geysta kala hadal. Discipline. Sidee loo discipline gareeyaa next week ma ka hadalnaa? Yeah? Ilmaha marka la rabaa in wax la tababaro qaab loo tababaraa jirto. So haddii aad hadda soo u baahantihiin next week aan ka hadlaynaa insha Allah. Su'aalihiina hadda akhrinaya, okay? Waqtigan bixi lahaa hadda waa la gaaray 3 minutes ay dhiman insha Allah. So waa baxaynaa. Muscab si walbo aan ugu sameeyo TV-ga intay xadaan ay daawanayaan aniga markaasaan xanaaqaa. TV-ga is a big problem.
TV-ga problem wuxuu noqonayaa markii ilmaha addicted ay ku noqdaan. Maogtahay TV-ga waxyaabaha addicted-ka lagu noqday ka mid tahay. waa balwad camal. Video waa kasoo sameeyay Uma Muscab, YouTube aa soo dhigay. Waxyaabaha samayn kartid TV-gana ilmaha ugu bedeshid iyo no dhibaatada ay leedahay TV inay daawadaan. Horta ilmaha iyaga kuma dhalin, adiga iyaga dhalay. Gurigaaga rules waa inuu leeyahay. Gurigaaga rules markuu leeyahay, ilmahaagan ogyihiin gurigan aadaabtana ka jirto, dan aadaabta inay ku dhaqmaan waa inaad bartid. Ilmahaaga TV haddii adiga aad u diidaysid, adigana TV inaad daawatid ma aha. Okay? So waa like waa inaad la fariistid ilmahaaga oo la hadashid oo ka hadashid TV-ga dhibaatadiisa iyo waxyaaba ugu bedelaysid TV-ga. It's a long process because way kaa barteen. So ina hadda ka goydid xoogaa dhibay noqonaysaa. Laakiin waqti sii. Wax walba adduunyada waa possible. YouTube maxaa kuugu qoran? Hooyo homeschool aa YouTube iigu qoran. Ujeedaa meeshii ku qoranta Amazon, hooyo homeschool aa ku qoran. Meeshaas hooyo homeschoolta bugaagtanana way kusoo baxaan, YouTube-keygana wuu kusoo baxaa, TikTok, Snapchat, social media oo dhan, Instagram, magacaasaan ku wataa insha Allah, okay? insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin, shukran, cafwan. Waa arkay masajadiina maanta oo dhan, laakiin inaan akhriyo ma rabin because haddii kale waa ilaawaya, waxaan ka hadlaa ilaawaya. Maryooley, waalidka waa miraayadda ciyaalka ee iska dhex arkaan. Yes. Ilmahaaga way ku daawanayaan. They are adiga waxaa u tahay model. So role model fiican wayna u noqonaa ilmaheena insha Allah, okay? Thank you Maryooley, thank you so much. Maxaa kuugu qoran YouTube haa ku sheegay. Maxaa kaloo iisoo qorteen walaalayaal? Abbaay 2 cunug jiro habeenkii 12 ay log aan seexiyaa hadda iyo 12 o'clock ma seexisaa 2 cunug. Yeah, uu ka kala go'o text message-ka I think waxaa ka wadaa 2 cunugaan haystaa habeenkiina 12 o'clock ee aan seexiyaa. Usually saas ma ka wadaa? Maryooley, thank you so much for inaa u sheegtay YouTube-ka magaciisa ma arkay. Cunug 2 jir ma 12 ka seexisa ma ka wadaa mise ilmo 2 ilmood habeen kasta 12 habeenimo kaa seexdaa ka wadaa. Ma soo qabsan kartaa he adiga? Let me see. No, you can't. Ma soo qabsan kartid, sorry. waan fahmi waaye iisoo qor magaca kuugu qoran YouTube-ka. Okay. Waxay ku soo qoraya 1 second. waa kana oo idaafe. Istaagayo. Marka halkan yimaada ku tusaya insha Allah. Bugaagteena kulli kuwa hortiina taagan yihiin ka arki kartid. Anigoo ka sheekeynaya YouTube-ka xitaa way ka buuxaan. Magaceena sidaas u qoran yahay. Okay? Hooyo homeschool. haddii asaas ku qortid waa helaysaa insha Allah. early inaad seexisaa rabtaa laakiin waad bari weysay waana 2 jir miyaa marka ilmahaas. two minute al dhaaf waqtigaan raba inaan ka baxo insha Allah. So 2 jir 12 habeenimo seexanayo. Okay. And waa very late. Yeah, ilmaha 12 habeenimo inay seexdaan ma aha. Ilmahaaga ugu dambeyn markay 2 sano 3 4 5 6 7 markay jiraan waa inay 7 o'clock seexdaan. Okay. And waa inay waqti hore seexdaan because 12 saacadood ay u baahan yihiin inay hurdaan. Hurdada habeenkiina wax ka wanaagsan ma laha. Marka waxaa loo baahan yahay inaa isweydiisid jadwalkayga maalintii waa sidee. Okay. So waxaa fiirinaysaa routine-kaaga waa sidee. Okay. waa inaad routine u samaysid ilmahaaga. Routine fiican marka ilmahaaga u samaysid
waqtinay wax cunayaan, waqtinay ciyaarayaan, waqtinay banaanka ku maqan yihiin, waqtinay nasanayaan. Ilmaha way daalayaan, wayna seexan karaan on time. So marka waa inaad sameydaa insha Allah. Aniga ma garan karo maalintaada siday u taala, ma ogtahay? So adiga naftaada weydii maalinteeda siday u taalaa. Maalintaada haddii meeqa saac ay bilaabataa? Oh, you're a first time mom. Okay. So ilmaha 2 jir markay yihiin, depends, nap inay qaataan way fiican tahay. Haddii nap time kaa qaadanayaan, markii la qadeeyo kadib nap time sii, markay soo kacaan banaanka gee. Okay? Early morning-kana markuu soo kaco, ilmahaaga quraac markuu cuno, ha iska ciyaaro. Haddii aad mataqaanaa awoodid, ama morning-kii banaanka gee, ama galabtii banaanka gee. Haddii uu ilmaha kaa seexanayo, nap time qaadanayo, waqtiga qadada kadib, afternoon-ka banaanka gee. Haddii uuna nap kaa qaadanayninna, ama morning-kaa geyn kartaa, ama afternoon-ka sida kuu fudud. Isku day marka inay wax badan hawo banaanka kusoo qaataan. Yeah? Wax badan banaanka kusoo qaataano, adiga xanaano u sameyn kartid guriga. Play u samee. TikTok-kayga gadaal ugu noqo insha Allah, waa arkaysaa waxyaaba u sameyn kartid ilmaha guriga markaa la joogtid. TV-gana ka yaree. Okay? TV-ga, telefoonka, iPad, whatever, tablet, you know, ka daa. Waxaas oo dhan ka daa. 7 PM markii la gaarana, sariirtiis saar. Buugaag ku akhri. waxyaabahaas oo kale dhan u samee. So routine-ka carruurta waan ka hadlay marar badan. YouTube haddii aad tagtid xitaa waa soo helaysaa insha Allah. Okay? Routine-ka carruurta iyo haddii aad rabtid ilmo routine-ka fahmo. Habeenkii ka horeysayba ka bilaabataa berri routine-keeda. So TV-ga waa ka joojisay. Masha Allah. Good, good. Yes, TV-ga waqti inaan u sameyno waaye. Yeah? TV-ga waa inaan waqti u sameysiin walaalayaal. aad u mahadsantihiin walaalahana soo booqday maanta. I hope inaa wax ka faa'iideen programka. Haddii aad noo cusub tahay, ha ilaawin follow, subscribe, like, share, wax walba. Okay, idinka warsugayaa. Waa inoo week dambe, jimcaha dambe biidni Illaahi tacaala. maxaa la dhahaa, meeshana waxaan rabaa inaan soo saaro. 1 second, ina available. Can I do it? Yes. Profile-kayga kala halkan soo saaraya. Okay? Kaasna waxaan sameeyaa 1 second. Okay. So profile-kayga halkan ka arkaysaan Badriya, insha Allah follow gareeya. Habeen dambe anigay Nasra imaanayna Baarsama channel. Sabti walba imaanaa. Hadda kadibna waxaan sameynaynaa hooyooyin kalena way nagu soo booqanayaan. YouTube-kaana kasoo geli doonaa insha Allah. Okay? Marka halkaas meeshan uu saaran yahay Badriya lifestyle. Halkaasna isoo follow gareeya insha Allah. Aniga hadda 7 minutes al dhaaf waqtigaa bixi lahaa. So aad iyo aad u mahadsantihiin. Queen Simona soo qabsatay. Queen Simona. Okay, waa ka degatay. Thank you so much. Next time waan kusoo qabanaa ku dhiirabay. Insha Allah. So maxaa isoo qortay Batul Store by baby 4 sano. Dhameeyo oo wali wax la barin school ama dugsi. Haddana le aadan muqalad baa. Videogan YouTube waa soo dhigi doonaa ifraaxay haddii aad soo qabsatid insha Allah mana ka goynayo wax. Okay? Batul Store maxaa tiri 4 sano. Okay, ifraax wuu kaa go'ay. TikTok aad duubayo. So farxiyo TikTok aad duubayo. Then videogan xaggan soo geliyaa, ma fahantay? Si waa ka degatay.
si maaragtay dad badan oo hadda nala joogina iga soo dalbada live-ka oona waqtiyo kala nahay mogtahay. So YouTube aan soo geliyaa videoga, TikTok waan kasoo dejiyaa waan soo geliyaa live-kan. Therefore, okay, thank you Ifraax. Insha Allah WhatsApp-kayga haysataa isoo waca insha Allah, okay. Maxaa meesha kusoo qortay Batuul Store ilmo 4 sano jiro inaadan iskuul geynin wax oo haddana aadan rabin inaa iskuul geynin oonana waxnana baranin ma qalad baa. Ilmahaaga xaq waxay u leeyihiin inaa education siisid inaa wax bartid, okay. Whether aa iskuul geynaydid ama inaa adiga baraydid ama inaa macallin u qabanaydid, ilmahaaga xaq waxay u leeyihiin education, yeah. Xaquuqda ilmaha in la wax la baro waxay ka mid tahay rightskooda, xaquuqdooday ka mid tahay. Marka waa inaad raadisaa qaabkii aad wax ku bari lahayd. Ilmaha waxaa wax loo baraa si ay noloshooda berri iyaga u dabaran karaan. Waa inay xirfad bartaan, ay ku noolaadaan, waa inay mataqaanaa diintooda bartaan, si ay diintooda u dhaqdaan berri, ee Ilaahigooda subxaana wa tacaalaaga sameeyey ay u caabudaan. Waa inaa mataqaanaa xaquuqul waalideynka bartaa si ay kuu fahmaan adiga qofkaa tahay iyo waxa aad dantaa ka leedahay iyo waxyaalahaas oo kale. Iyo mataqaanaa inay bartaan siday u noolaan lahaayeen life skills waa inay bartaan. So ilmahaaga xaqay u leeyihiin inay wax bartaan. Ilmo 4 sano jiro oo weli aanan wax baranin waa dibdhaca ku sameyd ilmahaas, okay. Marka waxaa muhiim ah hadda kadib insha Allah inaad u raadisid qaabka ilmahaas wax u baran lahaa. 4 sano waa waqtiga like inshallah, okay. And she's really enjoying daycare. They play a lot. That's good. Daycare hadday tagaan ilmahaaga inay ciyaaraan oo loogu talagalay. Up to age 7 ilmaha ciyaar wax ku bartaan. So that's okay. Yeah. Ilmaha intay 7 sano ka gaarayaan waa lala ciyaaraa. 7 ilaa 14 sano waxaa la baraa. 14 sano markay ka weynaadaanna talay kugu leeyihiin. You advise them. Okay. xadiidka nabiga ahaa sidaas sallallahu alayhi wasallam. So let's do that. 7 sano intay ka gaaraan ciyaar wax ku baranayaan. Ilmo waxa arkaysaa 7 sano jiro quraanka meel fiican ka maraya. Ilmo waxa mataqaanaa kalaradii shapeski wax dhan bartay, sida wax loo qoro, sida wax loo kalareeyo, sida wax loo midabeeyo, sida wax loo draw gareeyo, art everything barta. Ilmo waxa jira by the time ay 7 noqdaan wax badan ay yaqaanaan. Waxa markaasna ka dhiman kaliya qaabkii wixii sida saxda loo sameyn lahaa like sida salaada way kula dukanayaan laakiin then markay 7 noqdaan waa inaad bartaa qaabkii loo weyse qaadanayay, qaabkii loo tukanayay, you know. Markay 10 noqdaan waa inaad bartaa qaabkii loo soomi lahaa. Markay 14 jirsadaan oo ay ku noqoto qasab inay yaqaanaan qaabkii u noolaan lahaayeen, ay diintoodana u haysan lahaayeen, yeah. inshallah. So walaalayaal waa kasii dhacaya hadda inshallah. Waxaan sarkaynaa wiiga dambe biidnillaahi tacaala. aadi aad u mahadsantihiin. Maryoley, thank you so much inay caawinaydid caawo walaalayaal. Maryoley, let me follow you back. And buugga aadaabta jimcaha book ma ka samaysay? Maya weli ma ka samaynin book because waaba idin tusay waxaan samayna soo maahan. Book inaan ka sameeyo specifically ma rabi lahayd Ifraaxe, yeah. YouTube aa soo dhigo waxyaabaha noogu jira buuggaas waxaa waaye waa soo printeeye, okay, insha Allah. waxaan rabay mataqaanaa haddii aan kaa soo geliyo online-ka quraan aa ku qoran even haddeer quraanka next week aan ka hadlayna, don't worry. Buugga kitaabka juz cama hadda meesha ku jira xitaa sheeko kale idinkaga sheegaya next week biidnillah. Ifraax message iisoo qor Ifraaxay WhatsApp-ka insha Allah. Aniga kuu soo diraya adigaa soo printaysanaysid insha Allah, okay, no problem. Ifraax waxaa waaye walaasheen waqti dheer nagu xiran. Jazakallahu khair Ifraax, no problem insha Allah. maxay ku saabsan tahay caawinaadaada?
عاوناد قفنا wax soo qoray 3 jir farahiisa cunaya maxaa lagu caawin karaa ma tiri waa inaa u sheegtid hooyo faraha lama cuno maxay tahay wuxuu faraha cunayo anxiety ma hayso ma cabsanaya ma baqaya gaajo ma haydo ma daalan yahay maxaa la dhahaa ma hurdahaydo maxay tahay wuxuu iska mashquulinayo fahan maxay tahay wuxuu iska mashquulinayo ma fahansan yahay in waxaas communication la sameeyo badanaa ilmaha markay wax sameeyaan oo ka baxsan wax kale communication kaliya u baahan yihiin okay communication fiican ay u baahan in la sameeyo insha allah hodman abaayo buugga jadwalka iyo midka dacooyinka ma isku mid baa yes so buuggeena okay waxaa la dhahaa waraaqaha qoyska waxaa ku qoran adkaarul sabaax adkaarul masaa waxaa ku qoran routiinka caruurta waxaa ku qoran daily plannerkaaga adiga aad samaysan kartid waxyaabaha dhaqaalaha guriga u isticmaali kartid caruurta emotionskooda waxyaabaha uga caawin kartid dareemahooda ay ku fahmi karaan markay ooyaan markay xanaaqaan saana ku sawiran hadda waa idin tuso marar badan video waan kasoo sameeyey live dhan aan kasoo sameeyey buuggaas waxa ku qoran from A to Z waa idinkaga soo sheekeynayaa sidaan oo kale aniga usoo galay marka youtube taga soo daawada insha allah okay kaas markaa gadatid wax dhan way ku jiraan aadaabta guriga ku jirto waxaa ku jirto positive affirmation waxa la dhaho like you know ilmahaaga inay adigoo ku dhahdaa hooyo waan ku jeclahay hooyo waad caqli badan tahay laakiin iyagana inay isku dhahaan aniga waa la jecel yahay aniga waan caqli badanahay wina iyagana aaminaan marka 4 miya mise 5 warqadood oo sidaas oo kala duwana way ku jiraan waxyaabo badan ku jira buug aad u badan yahay so waxaa la dhahaa waraaqaha qoyska okay tag videoga soo daawabi insha allah haddii aad privatekeyga rabtid waa igu darsan kartaa profilekeyga uu saaran yahay whatsappkeyga okay whatsappkeyga waa ku dhufanaysaa magacayga markaa ku dhufato waa arkaysaa link taabo link markaa taabato then you're waa arkaysaa firi hadda geynayaa then waa kasii baxaya insha allah waa daahay sorry si aan usii dhaco dhaqsi ma fahanteen waa kana hadda idin tusaayo okay so halkaas meeshay cabdiraxmaan ku qoran tahay hadda online ka ahay hooyo homeschool ku qoran meeshaas linka riix meeshay ku qoran tahay linkaas aad taabanaysaa hooyo homeschoolka ku dhufanaysaa markaa ku dhufato then wuu ku geynayaa profileka waa kana so waa kana halkan kasoo qayb gala teamkeyga soo galaysiin so markaan imaado liveka oo kale waa soo diraa markaan video soo dhigo waa soo diraa halkan waa whatsapp groupkeyga halkan waa aniga kaliga halkan ila soo hadli kartaa halkan waa youtube halkan waa bugaagtii oo dhan so wadankaad degan tahay calankiisa taabanaysaa then waa helaysaa insha allah okay waxyaabo badanna shopkan waa soo geliyaa shop maxaan isticmaalaa hooyo homeschool halkan markaa ku dhufato waxaa arkaysaa waxyaabaha uu isticmaalo guriga tinta alaabta guriga taalo waxyaaba ramadaan kusoo gato waxaas dhan ka buuxa insha allah okay okay no problem aad iyo aad u mahadsantiin okay jazakallahu khair waa kasii dhacaya hadda waa inoo wiiga dambe biidnillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu